Assalaamu calaykum. Maanta waxaan isla sahamin doonaa muhiimadda ay leedahay in waalidka iyo carruurtu ay waqti ku filan isla qaataan, taasoo muhiim u ah kobcinta iyo korriinka ilmaha. Nagu soo biir si aan u wada baranno qaabka iyo sida waqti tayo leh aad ula qaadan lahayd carruurtaada si uu u dhismo xiriir adag oo macno badan u leh korriinkooda iyo mustaqbalkooda. Nolosheenan mashquulka ah waxa ku badan qalindaarka. Laakiin ogow in ubadka oo lala jooga ay wehel u tahay ubadkaaga, macno weyn iyo waxtarna u leedahay marka waqti gaara oo aad ubadkaaga siiso, meelna iska dhigto wax kasta oo ku mashquulin kara. Waxay ilmahaaga tusaysaa in aad qadarinayso oo aad jeceshahay. In aad la ciyaarto ilmahaaga ma aha madadaalo keliya, waxa kale oo ay tahay fursad ay wax ku baran karaan. Waxna aad ku bari karto oo aad ku wada dhaqantaan. Ilmahaaga waxaad la ciyaaraysaa ciyaaro carinaya fakarkooda iyo mala-awaalkooda. Carruurtaada oo wax lala akhristo kaliya ma wanaajiso xirfadooda wax akhris. Waxa kale oo ay xoojisaa xiriirka shakhsiyadeed iyo ka shucuureed. Maktabaddu waa kayd qaali ah oo ay ka buuxaan sheekooyin macaan oo u baahan in la akhriyo. Maktabaddu waxa kale oo ay tahay meel jawi degan oo waxbarasho lagu wadaago. Waa muhiim inaad gurigaaga ka samayso meel bilaa buuq ah, halka oo ilmahaagu jecel yihiin inay wax ku akhriyaan, soona jiidata dareenkooda iyo deganaanshahooda. Waa qaali daqiiqad kasta oo aad la qaadato ilmahaaga. Hawlaha yaryar ee ay ka mid yihiin inaad carruurtaada la ciyaarto, wax la akhrisato, ama aad wadajir wax u wada suubisaan, waxay dhisaysaa aasaaska xiriirka nololeed ee idinka dhexeeya. Xusuusnow, jacaylkaaga iyo dareenkaagu waa hadiyadda ugu weyn ee aad bixin karto.